أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قاليga kusoo dhawaada janalkiina maasha allah. halkaa maanta waxaan kusoo sameysanay kafee aad u fudud oo aadna u macaan oo maasha allah oo 2 daqiiqo ku sameysan kartid. kafeegan aa ujeedin oo hadda kor idin dhahay waa idin soo gelinayaa. waa isla kafeegan waaye, isku mid kale waaye maasha allah. kafeegana la daawada sida quruxda badan aan soo sameysanay. mara badan aan rabo inaan idin soo geliyo way ii suurto gali weyse, laakiin maanta ii suurto gashay inaan idin soo geliyo kafeegii islaan u sameeyay maasha allah. halkaan digsi hadda dabka ii saaran waxaan ku shubanayaa waa 2 koob caano ah. nala socda. waa kafee aad u fudud aadna u macaan, caraftiisa lagama sheekeyn karo. 2 daqiiqo 3 daqiiqo ku soo sameysan kartaa. kafee dhib badan ma ahan, aad u fudud yahay, shaqo badanna kaagama baahno. dad martid ay ku imaadaan isla markaa ugu soo tuuri kartaa, ama nafsadaada isla markaa ugu soo tuuran kartaa maasha allah. marka waa kaasa hadda waxaan kusoo shubay waa 2 koob oo caano ah iyo 2 qaando oo sokor ah. haddana waxaan ku dareynaa waa 2 qaando kafee ah maasha allah. nala socda adi inta qiyaastaada ah. haddii 3 qof tiin 3 koob ka dhigi kartaa. sokortana 2 jibaar ka dhigi kartaa. kafeegana 2 jibaar ka dhigi kartaa. sokorna inta adi qiyaastaada tahay hadda 2 qaando sokorta ah, 2 qaando kafee, 2 koob caano bis inta soo saaraysanayna. dabku hadda noo saaran yahay, intaas isku karkarsanayna. nala socda walaalihii qaaliga ujeedin digsigeena dabku noo saaran yahay. kafeegeena ujeedin soo buraaya. hadda waan ka dejinaynaa already diyaar waaye oo blenderkan ku blend gareysanayna. nala socda ama mashiinta juice-ka ujeedin walaalihii qaaliga kafeego ku leeyahay oo sidiisa ama mashiinta juice ku soo shubay maasha allah. haddana waa kana waa shiidanayna. nala socda walaalihii qaaliga ah. waa kana kafeegeena waa shiidanayna. kafee aad u fudud aad u caraf badan oo maasha allah waaye, mana dhib badno. 5 daqiiqo kusoo tuuran kartaa. dad martid ay kula joogaan, dad martid ay ku imaadaan camal waa wax dhaqsi ah ugu soo tuuri karta. ama nafsadaada hadda u baahan tahay inaad guri ku sameysto oo dhaqsi ku sameysan kartid waaye oo aad u fudud waaye maasha allah. ujeedin kafeega hadda waa soo shiidanay, waa noo diyaar. haddana koobkeena ku shubanayna walaalihii qaaliga nala socda maasha allah. kafeegan ila soo tijaabiya waa ka heli doontiin maasha allah. caraftiisa lagama sheekeyn karo iyo quruxdiisa iyo macaankiisa. ninkana waa ujeedin sidoo aad ugu fudud yahay maasha allah. mashiin hata uma baahnid, mashiinta kafeeda uma baahnid inaad ku samaysatid maasha allah. sidaan kafee sidaan u qurux badan waxaa ku sameysan kartaa gurigaaga adoo joogtid. waxyar kafeeyan kor ugu soo qurxinayaa maasha allah. walaaleyga nagu cusub inta nagu cusub oo hadda nagu soo biirto waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan qalbi furan maasha allah. aad iyo aad u mahadsantihiin inta nala joogteen. waxaan idin leeyahay soo dhawaada nala jooga support gareegana la wada maasha allah. aad iyo aad u mahadsantihiin. kafeegeena waa kana sidaan quruxda badan aan ugu soo baxay oo aad ku macaan badan inaba caadi ma ah, lagama sheekeyn karo. haddana u cusub tahay fadlan subscribe anaga iloobin, gambalaalkana furo sida video walba aan cusubna u soo geliyo oo noqoto qofka ugu horeeya kugu soo dhaco maasha allah. like share comment hanaga iloobin. hadda hor nala joogtin aad aad ugu mahadsantahay. like share comment hanaga iloobin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.